halkani waa dalka Suudaan. run ahaantii dalka Suudaan bisha Ramadaan dhaqan waxay leedahay oo aad iyo aad u qurux badan. waxay sameeyaan wadada geeskeeda ayay waxay ku firaashaan dermo afur ay ku diyaariyaan, dadka musaafiriinta ay joojiyaan. qof walba oo soo maro wadadan jidka loo istaagaa, xitaa haduusan rabin waa lagu khasbaa, waa la hor istaagaa baska musaafiriinta, baawurta yaryar, baawurta waaweyn, wadooyinka taagan yihiin waa kana, waa la joojinaa baska, dadka soo degaa la leeyahay xili afur waaye, afura maasha Allah. afurkay ummadda la qaybsanayaan, ajarkay qaybsanayaan. markaasa waxaa arkaysaa wadada dhinaceeda dad fara badan oo ku afuraayo oo musaafiriintii ah. markay qoraxda ee dhici rabta ee soo dhawaataba 20 daqiiqo ka hor imaanayaan, basaskay joojinayaan, dadkay isku keenayaan, waa kuwana maasha Allah. wallahi ajar badan ay qaadanayaan, Allah idinka aqbalo. waa kana musaafiriintu waxa leeyahay soo dega, kii diiday xitaa waxa leeyahay wax yar le kaalidna la afra leeyahay. waa dhaqan aad iyo aad u qurux badan, mudan wiliba in lagu daydo reer Suudaan. maasha Allah, wallahi waa cajiib. bisha Ramadaan waxay sameynayaan dadkoo dhan ay afur gaarsiinayaan musaafiriinta wax wadada socdo. run ahaantii waxay mudan yihiin walaalaha Suudaan in lagu daydo, maxaa yeelay qofka aad afuriso ajarkiisa oo kale ayaa adigana leedahay. maasha Allah.